horta alxamdulilah khayr allah idin siiyo tilaabada aad soo qaadeenna ajir badan allah idinka siiyo ustaad xasan sunni waa ku faraxsanahay noo timid aad iyo aad Seattle oo imaanayna insha Allah yes Seattle ayaana waa magace dadka ah hadda Columbus Ohio waxa qabtay waa dadka waa masaajidka waa community-ga saasoo kale xagga marka lagu qabanayna adinka qabanaya waxaan aad iyo aad fursad kaga faa'iideysanaya u mahad celinaya volunteerka maanta xitaa hadda uu ka mid yahay Ustaad Xasan Sunni oo si free ah maanta hawshan ugu qabanaya miidiyaha Allah baraka intaas asagii tigidhkiisa la soo baxay waqtigiisa soo qoray hotelkiisa la baxaya qofka muslimka waxa loo baahan yahay tadxiya nafti hore inuu noqdo oo diintiisa u horo maalkiisa u horo sidaas oo maartay oo yaa dadkii horumar lagu gaari karaa guurka waxaan rabaa inaan laba qodob ka sheego kow ma jirto mar la dhaho xilliga guurka ugu munaasabsan baan guursan doonaa xilliga aad taagantahay xilliga ugu munaasabsan waayo ballanqaad ilaahay baad ka haysataa haddii qalbigaagu uu yahay waxaan rabaa inaan ilaahay dartii u dhowrsanaado ballanqaad ilaahay baad ka haysataa Xasan Sunni brada walaalkeen ku soo dhawow gobolka Ohio magaalada Columbus sharafeen noqota inaan soo booqatay maanta adigoo u yimi confession weyn oo islaamiga ah oo ka dhacay sanadkii koowaad lagu qabtay Ohio runtii waxa iskugu yimaaday dad aad u tiro badan oo ka yimaaday gobolada Soomaalidu ay degan tahay iyo muslimiintaba Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan joognaa magaalada Columbus gobolka Ohio waxaan u imaanay convention-kan oo ay ka mid yihiin Quraan competition iyo sidoo kale barnaamijyo badan oo muxaadaraad luqadda Soomaaliga iyo Ingiriiska alxamdulillah saaka aroortii buu bilowday wuxuu soo gabagabay doonaa caawa 10ka marka vlogger ma ka diyaarinaa insha Allah taala iyo sida ay muslimiinta joogto gobolkan ugu soo qaybgaleen waxaa la sheegay convention-kan inuu yahay kii ugu horeeyay oo muslimiinta ku nool gobolka Ohio ay qabato dad badan oo muslimiin ah halkan ku nool oo 100 gaaraya Soomaalida kaliya lagu sheegaa inay 40 50 60 meelahaas yihiin marka barnaamij baan ka diyaarinaa insha Allah taala hadda waxa socdo panel waxa socdo ku saabsan marriage-ka oo luqadda Ingiriiska culimada fadhiya waxa kamid ah Sheekh Ukaasha Kemeni waxa kamid ah culimo kale oo gobolka kale oo Mareykanka iyo Canada ka kala imaaday sidoo kale qaybaha hoosena waxa ka socdo muxaadaraad Soomaaliya ka socdo Quraan competition-ka ayaa isna socda oo soo gabagaboobay doono 9 meel insha Allah taala marka la socdo hadii aad barnaamij aad u qurxoon baan kaga diyaarin doonaa hadii aad runtii hawshaad bulshadu haysana jazaakallahu khayran mutamarkan wakii horeeyay Columbus lagu qabta ayaana waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo mid joogtooba waxaan ku faraxsanahay maanta runtii in iyadoo markii horeysay ay taadana dad badan ay yimaadeen iyadoo roobabda ayaan Soomaalidan inta badan conventionada aad lama qabsanin baarkinadoodii iyo waxoodii waalidiin bay dadku badan yihiin culumo kala duwan barnaamijyo kala duwan mawduucyo kala duwan iyo hadda la abaal marinay tartankii Quraanka caruurta marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barkay dadka sameeyay idinkan hawsha ummadda haysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idaga aqbal insha Allah ta'ala barnaamijyo badan kan looga hadlaayay waxa kamid ahaa arrimaha guurka oo waliba qayb Ingiriis oo aad iyo aad muhiim ah ka qayb galay marka bal xoogaa maxaad talo hoosinay dhalinyaro badan oo laga yaabo inay daawanayaan oo laga yaabo inay 30kii ama ay ka sii baxayaan oo wali aan guriga leelin oo laga yaabo in ay caqabad ka dhiganayaan waxyaabo badan oo caqabad ahayn oo kamid tahay financialka iyo yaani qofkii qalmo ma hayo marka maxaa talo siinay dhalinyarada single-keena daawanayo oo aan rajeynayno inuu single-nimada ka baxan intaan u dhamaan sanadka 2026 insha Allah guurka waxaan rabaa inaan laba qodob ka sheego kow ma jirto mar la dhaho xilliga guurka ugu munaasabsan baan guursan doonaa xilliga aad taagantahay xilliga ugu munaasabsan waayo ballanqaad ilaahay baad ka haysataa haddii qalbigaagu uu yahay waxaan rabaa inaan ilaahay dartii u dhowrsanaado ballanqaad ilaahay baad ka haysataa laakiin waxa ku cabsiinaya shaydaanka oo rabo inuu dhalinyarnimo iyo shahwadda waxa kugu hayo waxaan rabaa dhalinyarada inaan dhaho marka hadduu ilaahay ballan qaaday uu yiri anaa mas'uuliyadooda iyo kafaalo qaaday waxaad ka cabsitaa ma jiro kaliya isku day istikhaara inaadan iloobin qofta lamaanaha markay isdooranayaan fadlan iyadoon qabiil la eegin iyadoon la eegin lacag ma leeyahay followers ma leeyahay qofkan ma yahay qof ilaahay yaqaana oo mas'uuliyadda qaadi kara sidaas waxaan idin rajaynayaa inaad qodobka labaad ee sheegay waxa weeye fadlan dhalinyar intaad yartiin guursada runtii maalinka aad guursato waxaad oran doontaa ay wish inaan guursan lahaa sanado ka hor koobka shaaha wiilashaan la hadlaya iyo gabdhaha koobka shaaha ama
7 brew ama Starbucks meesha doonaa $8 kaaga baxayso caanihii iyo sokortii iyo shaahi iyo biyo intaba intaas waa ku gadi saas lacagta loo saf garay jazakumullahu khayran كل هدية نوصل رجشنا الشيخ برنامج قوينا كقبل دونا إن شاء الله تعالى أو بودكاست السلام ورئيسه خير لك سيو المقال كان الله صعد إن شاء الله تعالى ولو نوسي صعده نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدي. السلام عليكم سوجودان حكوا قبو هذا وحلو دواقيا guulaystayaashii tartanka quraanka kariimka kaalmihii koowaad iyo labaad iyo saddexaad galay hadda waxaa loo yeerayaa jusaska 1 ilaa 3 ka bacdina waxaa ku xigi doona jusaska ilaa iyo quraanka dhamaadkiisa 30 jus ayaa ku xigi doona runtii ardayda ka imaaday magaalada Seattle gobolka Washington oo ilaa 3 dhalinyaro ahaa rajadooda ma xuma marka waqtigan waa waqtiga ugu fiican oo examentiga caadiga aan dareemin aad ku badan sababtoo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in Seattle qaado maadaama anigu aan kamid ahaa odayaashii dhalinyarada waday marka mar walba lagu dhawaaqi doona waana la socon doontaa insha Allah taala والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسسني برادا walaalkeen ku soo dhawow gobolka Ohio magaalada Columbus sharafay noqotay inaan soo booqatay maanta adigoo u yimi convention weyn oo islaamiga ah oo ka dhacay sanadkii koowaad lagu qabtay Ohio runtii waxa iskugu yimaaday dad aad u tiro badan oo ka yimaaday gobolada Soomaalidu ay degan tahay iyo muslimiintaba North America waxa laga yimi Canada waxaa laga yimi Minnesota Seattle oo xasuusin nooga yimi gobollo badan oo Virginia Texas ayaa nolo ka yimi runtii si fiican ayaa loo qabanqaabiyo loo diyaariyay waxyaabo badanna waa la sameeyay tartankii quraanka la sameeyay course badan iyo networking badan iyo consultation badan iyo training badan la sameeyay si fiican baa dadku uga soo qayb galeen Ohio haddaan nahay dhalinyaradii shacabkii iyo culimadii iyo wadaadadii masaajidada waa ka soo qayb galeen sidoo kale waxa ka soo qayb galay small business ka dadka ah anigoo kale waxaan matalayay Faratol LLC business kan waxaan ku sameeyaa small business ka sida small business consultation waxaan sameeyaa LLC-yada waxa soo dhanaa dadka u furaa waxaan ka caawiyaa dadka small business xalaal ah si ay u heli lahaayeen taxiga waa xareeya real estate-ka guryaha waa gabnaa waxaan isla shaqeynaa walaashan Khadiijo oo iyadana halkan joogta Khadiijo Islay bannerkeeda waa kaasa is okay marka dadka waxa uu sheeganaa reer Ohio iyo reer America oo dhan inay maaragtay noo yimaadaan waa caawin doonaa businessyada kala duwan waxa la wax u baahan yihiin hadii ay rabaan in loo furo businessyada waaweyn sida home care-ka daycare-da waxa soo dhan application-kana sidoo kale waa ka caawinaa marka soo dhaw xasan mar kale soo dhaw brother assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sheekhana jazakallahu khayran kulankan run kulan aad u qiimo badan runtii wuxuu ahaa ilaahay mahadiis ilaahay fadligiis aad iyo aad u barakoobay run ahaantiina waxa ka soo shaqeeyay dad khayr badan dhalinyaro ka shaqeysay mu'tamaraadkeena anaga dhalinyaro ka shaqeysa mu'tamarka Minneapolis iyo midkaanba
kuwii kaloo qaban doonana way ka shaqayn doonaan dadka kasoo qayb galina 90% waa dhalinyaro focus keenan wuxuu yahay dhalinyaro focus sababtoo tahay youth department-ka ayaa mas-uulka inay qabato convention-kan waayo youth services markaan sameynaynay 2022 ayaan waxaan u designate garaynay acmaasha ay qabanayaan inay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ku badan tahay Columbus, Minneapolis iyo meesha Seattle kastoo Seattle weli lagu qabanin insha Allah lagu qaban doonaa in lagu qabto convention weyn oo dhalinyarteena iyo dadkan lagu soo jiido waxa kale oo mutamarka qurxiyay tartanka quraan cajiib oo aad iyo aad u fiican oo ka dhacay sidoo kale graduation ama qalin jabin macadka masaajidka Ibn Taymiyyah oo ka dhacay iyo gabdho iyo wiilal volunteers oo runtii si fiican aad iyo aad u qurux badan uga shaqeeyay mutamarka waxa soo dhan waxa awalka ah ilaahay fadligiisa iyo ogolaashiisa ma sha Allah taas asal taas oo horeyso waxaan kala dhan waa asbaab in la dadaalay laakiin ilaahay baa ya barakeeyay mutamarkan waa sheekhi kulli saan dareemayo examinatiga dadka soo qayb galeen aad bay u sareysay marka maxaa taaban karo ka soo baxay kulankan saaka bilowday waxaan arkay 30 juz oo kale ilaa 3 dhalinyaro ah ayaa boqol wada keenay dhamaantood waxa lagu wareeray qof oo la kala saari waayay waxyaabo kale soo jiitay oo aan jeclahay inaad ka hadasho xogaa waxaan ka qayb galay room looga hadlayay marriage iyo marriage consultation oo English speakers ah ka hadlayay macallin wadaadada English ah waxaa ka soo qayb galay horta gabdhaha u badnaa oo soo buuxiyay sidoo kale wiilashana way badnaayeen oo qaab muxaadara ma ahan wuxuu ahaa qaab conversational xoga ah yes oo wada sheekaysi su'aali jawaab marka bal noo soo koob insha Allah taala maadaama kulankan soo bilaado haddana soo gabagabo waxyaabaha ku ilaa 3 dhigi karto oo faa'iido community aan wada la wadaagi karno insha Allah alxamdulillah sheekh Xasan kulankan wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيدي ودبا ددك وحو بيان wax la xasuusiyo ijtimaaca iyo soo imaashaha iyo khayrka wada qaybsiga wax aad iyo aad u weyn dadka ku noolaada asalka horta maxay qulubta inay ku noolaato lagu wanaagsanaado qodobka labaad mawaadiicda markaana taabanaya in lagu daaweeyo oo mujtamaca hadda ma aha kaliya inta timid inta fiirsan doonta oo marka idaacadaha iyo ay gasho iyo media iyo social media ayaa ka badnaan doonta kumanaan jeer سادرتي waxaa kamid ah kow barnaamijka aad sheegtay oo qoyska tarbiyada caruurta maanta dhibaato dagaal xun baan ku hayaa oo ma taqana weerar iyo cunsuriyad iyo islaam nacayb iyo Soomaali nacayb wadanka jira arintaas sidii la isaga qaban lahaa iyo warbixino muhiim ah baa laga soo jeediyay qofka sidoo u sugnaan lahaa xilligan oo kale markay dadka cararaan magaca bedeshaan 9/11 kadib waxaan xasuustaa dad magacyada bedeshay maxamed moo la baxay iyo zakariya zaak la baxay tiyo kale maanta maraysa marka sidii loo sugnaan lahaa oo dadka loo dhiirigelin lahaa inay diintooda ku sugnaadaan dhaqankooda waa kamid alxamdulillah iyo dhalinyaradaas quraanka baratay iyo kuwa macaahida ka baxay in la dhiirigeliyo oo encouragement ay helaan oo ay warkoodu baxo oo kuwa kale ku daysadaan falyatanafasil mutanafisun marka insha Allah ujeedada saas ay ahayd waxaan is leeyahay haddaan la wada gaarin qayb fiican baa laga gaaray insha Allah ma sha khayr laqsi sheekh waan ku faraxsanahay runtii fursad ciid hore isugu kaadibaysay in aan aragno anaga waxaan ka mid nahay dadka meelaha fog ka yimid wasaas qaar keen anigoo kale inaan istoobaan laakiin waxa isla soconid dad ilaa 9 saac soo socday marka alxamdulillah wixii aan soo safarnayna waxaan jecelnahay inaad ku qabataan Seattle insha Allah taala insha Allah absolutely horta alxamdulillah khayr Allah idin siiyo talaabada aad soo qaadeenna ajir badan Allah idinka siiyo استاذ حسن سنو وكو فرحسن انه تمت ادي اد سياتل ايمانين ان شاء الله يس سياتل ايانا ما مغعي ددكا هذا كولومبس oo ahay waxa qabtay waa dadka waa masaajidka waa community-ga saas oo kale xagga marka lagu qabanayana adinka qabanay ila ayaano anaka dhanba wada masaajideena community-geena Islamic Association North America masaajideena waa ilaa 39 Soomahan meeshu masaajid ayaana ku yaalo dadkaas waa ayaano waxaan maqli jiray dadku waxay dhahan ayaano maxay noo qabataa bay dhahan moogtahay anu waxaan dhahay JFK baa waxa la yiri wadanka muxuu noo qabtaa wuxuu yiri ask not what your country can do ask what you can do for your country marka anagu waxaan leenahay ayaana maxay qabataa dhiina adu ayaana maxay qabataa ila ayaana waa dacwadii masaajidii adi maxay qabataa ma sha Allah adi maxay ka qayb qaadataa adi maxay tusaa adi maxaa umada u soo jeedaa marka insha Allah hawshaas insha Allah risaalada waa idin dhibayna
رئيسيات دعوة برنامج ما شاء الله خير الله سي ويبقى إن شاء الله ديار أنيقنا أدينك أديك كم ده سياتك أنت مرة تجي exactly عدد إحسان من هذا إيمانه والله ما إن شاء الله إن شاء الله waxaa hadda ila joogo Sheekh Cabdullah Sancaani ama Sheekh Cabdullah Faarax oo kamid ahaa culimadii deemashan waqtiga gelisay gaar ahaan culimadii dadka dhan martaqaaday hawshan isku soo dubriday Sheekh Cabdullah soo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ حسن سني الله كبرك يا سيادة الناس وبغضي هذه أدمك عمد عليني أبصر بقشة سود وبارك الله فيك هاي قرآن كومبيتيشن سنة داي شجنيبا وسنة كأفراد أنت مقع لو بحيي 6 سنة وهاي الوقت بتي قبلك سنة كان أفرادنا وحن كدقني نورد أمريكا ودن كندا يوم أمريكا ودن ما كدقني هذا مسابقة حقيقة سيد هذا ودار كيسين كل الربع عجائب لا كذا كداعي ما شاء الله تصفية كسي هوريسي ولا السوق الربعي فاينل كان isugu yimid waxa aad arkayay 3 juz 3 arday waxay isku qabsadeen boqol wada keentay oo face to face isku qabsaday number 1 isku qabsaday waxa arkayseen juzka kale meelaha number 2 isku qabsanaya 3 baa isku qabsanaya arday waxa isriis gareysay 240 arday waxa imtixaanka gashay online ahaan iyo si live ba u gashay 240 arday kadib waxa laga sii qaatay 128 arday ma sha Allah moordan maanta 100 baa soo xaadirtay gobol kala gadisan oo Mareykanka kala yimid الله بركيو مرتبة بدن بنو تمد علماء بدن بنو تمد كل يوم علينا رك بدن بقى قريب غاته هوشان شركات قريب غاته هوشان سيدا توكل كسبري سيدا أمل كسبري مساجد دي من تيمية أبو هريرة تقوى أبو بكر يماس نقص الصعدة أشخاص الله بركيو إن قريب غاته وهاي قرآن كمتيج كل يوم علينا رنتي أخيرت النويم ما تحسون وكم ذي هاي وملاها فك أستاذكم نوعي ما سيال وشتون أوكله رنتي سيجونيا أيان صاحب كي أستاذ حسن سنة وما علينا inta kale la midkay Virginia ama Seattle ama Minnesota ama meelaha la midka ka kala timid jazaakumullahu khayran maadaama adigu magacaawdeen hadee duqi ama presidentigi ama ra'iiski musabaqadan Ohio xaqiiqatan culays badan bay leedahay shaqadeeda way cuslayd laakiin Ilaahay waxaan ka bari ka rajeynaa inuu anfaco yawman la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allah biqalbin saliim maantana guul bayna ugu dhamaatay alxamdulillahi rabbil alamin jazaakumullahu khayr sheekhi waa markii koowaad miya oo quraan competition lagu qabanayo convention convention center kan hada downtown Columbus Ohio ku yaala yes waa markii koobaad oo lagu qabanayo oo wad garanaysaan kharash culus baa baxaya xaqiiqatan one day gan maanta Sundaydan May 24 maanta ah 2026 macna one day gas kharash ka baxaya hada hadii sheegayna la yaabtaan baa laga yaabaa laakiin Ilaahay baa noo fuudeeyay wa thumma deeqsinimada Soomaalida deeqsinimada muslimiinta ayaa suurta gelisay dadkina way dhiiri gelisay yar iyo weynba إن شاء الله تعالى أنا سؤال لنا وسكوت أول وحنا كنا بنجرنا أما هوتيل يرير أما مساجد كنا وكلا وبيد الله ومش وشرف بدن لكن ذلك هذا أنت ما أنت ما بقاعدين بعد مدة مالها قرر ميسن قاعدين من يريد الله به خير يفقهه في الدين الفهم في الدين قف القرآن كلي إن لبر وحلوبة القرآن كلي إن لبر تفسير كيسي فقه كيسي سيرة حديث كي مع أرضي ما عاد كوار كيسي فنون تكلم دون صابر تستحسن كده ما أنت بقولني مرك إنك جاوبت لقد حركة داعي رتيني قف مش وكوها بوين يعني كير ربط تروح حاجة قيسك kii raba talo xagga maartay dhaqaalihii kii raba talo xagga guud in la heli karo goobo kala duwan kii raba quraanka inuu dhageysto iyo tartanka socda kii raba training macalinka training qaadanaya runtii aad bay amaayana guud ahaan la noqdo ama masjid ibn taymiya oo hoos gareey hawshan ama Ohio quraan competition juhuud badan oo isku tagay oo gobollo badan talooyin la isweydiiyay in badan wax la soo gorfeynayay bay ahayd Ilaahay baa waafajiyay jazaakumullahu khayr waxaan ka cudur daaranaynaa runtii taqsiir baa imaanaya maadaama intaan mujtamaca la isku keenay taasna waxaan leenahay isku cudur daaro sidoo kale waxaan aad iyo aad fursad kaga faa'iideysanaya u mahad celinayaa volunteerka maanta xitaa hadda uu ka mid yahay Ustaad Xasan Sunni oo si free maanta hawshan ugu qabanaya meediyaha Allah baraka intaas asagii tigidkiisa la soo baxay waqtigiisa soo horay hotelkiisa la baxaya qofka muslimka waxa loo baahan yahay tadxiya nafti hore inuu noqdo oo diintiisa u horo maalkiisa u horo sidaas oo maartay oo yaa dadkii horumar lagu gaari karaa dhalinyaraduna waxay wax ku gaari karaan inay diintoodii saas ugu dadaalaan inaad sugto un goorma la yeeri goorma saas la yeeli ma ahan jazaakumullahu khayr barakallahu aad ugu faraxsanahay walaalkay khayr Allah si hadda ka hor markaan imid si fiican soo dhaweeyay Farotol oo hadda ganacsigiisa aan taaganahay sawjeedaan Farotol wax badan buu community u qabtaa runtii haddaad business cusub aad sameynaysid haddii aad taxi xareynaysid haddii aad wax immigration wax walba oo community u baahan yahay ayuu qabtaa marka haddii aad u baahan tihiin in waxyaabo badan idinka caawiyo la soo xiriir insha Allah taala Farotol businesskiisa kulli waxyaabaha uu qabtana halkaas ayay ku wada taxan yihiin marka waa kaaga mahad celinayaa adiguna insha Allah taala si ay soo dhaweysay iyo hadiyada waliba qaaliga jazakallahu khayr walkis